waxaa ooynaya hooyadeed, walaalaheed iyo qof kasta oo Soomaaliyeed ee daawaday muuqaalka gabadhan yarta. waxa uu la galay gaariga, waxa uuna ku sameeyay wax aan Ilaahay iyo ummadda Soomaaliyeedba raalli ka ahayn. waxaan halkan kugu soo qaadan doonaa muuqaalada iyo sidoo kale sawirada ninkan si ummadda Soomaaliyeed ay uga digtoonaato gabdhaha Soomaaliyeedna looga ilaaliyo. waxa uu ka ganacsadaa gabdhaha Soomaaliyeed jirkooda, sidoo kale waxa uu isku dayaa mar walba inuu gabdhaha lacag siiyo, sidaasina uu ku soo xirogeliyo gabadhan yarta ah ee aan ku qiyaasay 19 iyo 18 jirka. ayuu muuqaal ka duubay isagoo oo si xun u galaya, isla markaana ay leedahay fadlan ha iga duubin muuqaalka ankii haddii aad sida tan igu sameeyday muuqaalka iga daa aboo waan ku baryayaa ayay leedahay. balse isagu kama yeelayo oo muuqaalka ayuu ku qabanayaa social media. asaga ayaa ka ganacsaday, lacag waaweyn ayuuna ku qaatay. sawiradiisa ayaan kugu soo qaadan doonaa halkan si ay uga digtoonaadaan gabdhaha Soomaaliyeed kuwa jooga magaalada Muqdisho iyo sidoo kale dalalka kaleba. haddaba halkan ayaan kugu soo qaadan doonaa ninkaas, balse fadlan intii aan u gudagelin subscribe saar channelka Soo Bandhiga Media, sidoo kalena gambaleelka u furo. iga jarnayso bijiga ku dartay kuma daran wallahi suuqa aad ugu darajoonaysa ku hadla laakiin Muqdisho waay goobta waan tagsiire waa ka saa waa hal gabadhaas waliba waxa waay ma hal gabar ma tan waa laba qof. midda hadda gabadha iftiinka u jeedid waa magaalada dhexdeeda waay, magaalada dhexdeeda mid tan karaxta gaariista bensal ma lahan fiiri waa caadi qoraxda qabanaysa gabadha dadka ay arkay leedahay ma jeedii xitaa xabadkeeda ay qarsanaysaa. midkaas kale oo aan ku soo direyn waxa waay waa isla gaari un taksiilayaasha dadka baabuurka leh waxa gabdhahaasaan u galaayo oo nin walba gaari cad wato. gabdhaha markii gabdhaha badankooda gaari ay jecel yihiin mogtahay, intooda waa gaari leewaay soo ma jeed. midkan dambe ee midka hore waa dad caadi oo group soo baxay gabdhaha inay codkan kale maqal gabadhu waxay leedahay meesha waa dareemay in gabadha la handadaay moogta. waxa cadeena idin haya waxa cadeyntaas ay tahay maqal codka muuqaalka saddexaad. gabadhu waxay leedahay nimankan soo fiirinaya tirada badan iga celi. waa gabar la garaacay laga yaabaa day maqal nimankan soo fiirinaya waa kala fiiri afku qab. gabadhan dhalinyarada ah sawirkeeda dad badan ayaa si aad u isticmaalaya sida inay iyadu qaladka leedahay oo kale. laakiin intaan xogtii u dambeysay ee ninka halista ah aan gudagelin, waxaan rabaa inaan hal mar ku maqshiyo codka ninka. iga jarnayso bijiga ku dartay kuma daran wallahi suuqa aad ugu darajoonaysa. ninka siduu u dhawaaqayo waa nin leh lahjada ama codka dhawaaqiisa deegaanada Somaliland ama waqooyiga. ninkan haddaba waxaa laynoo xaqiijiyay inuu yahay nin taksiila ah, baabuurkan u isticmaala taksi ahaan, laakiin bartilmaameedsada oo ugaarsada gabdhaha. muuqaalada uu duubana geeya baraha halista ah ee lagu kala iibsado. waa nin dhagar badan oo soo baxay oo qof kasta oo dumar ah ay u nuglaan karto, waayo ninkan waxa uu adeegsanayo wax caadi ma sababtoo ah wuxuu si aad u bartilmaameedsanaa gabdhaha da'da yar. waayo waxaa cadeen noogu filan 3 muuqaal oo kala duwan oo ninkan ah oo aan indhaha ka qaaday. waxa uu bartilmaameedsanayo waa gabdha yar yar. gabadhan miskiinta ah ee aad aragteena kamid ah cadaaladay u baahan tahay, waayo markaan fiirinay ninkan xog ogaalka oo hadda nala hadli doono oo aan codkiisa idin maqashiin doonana uu arkay gabadha waa gabar la qasbay, xoog lagu qasbay, ama hal handado ama si kalaba hala sameeyo. waxa uu la baxay Muqdishaawi, waxa uuna ku nool yahay magaalada Muqdisho, sidoo kale waxa lagu naanaysaa boqorka Muqdisho. sawirada tan ayuu leeyahay. ninkan waaye ninka ka fadeexeeya gabdhaha Soomaaliyeed inta badan muuqaalada, kuwaasi oo markii muuqaal laga duubayo iyagoo oo xaalad khatar ah ku jira ayuu la eegtaa, kadibna waxa uu ugu talagalaa inuu muuqaalkaasi ku faafiyo social media. isagu lacag ayuu ka qaataa, lacagtaasi oo qadarkeedu gaaraysa 300 ilaa 200 oo dollar. gabadha qiimaheeda waxba uguma fadhido oo lacagtaasi ayuu u jeedaa. gabdhaha la dhashay inuu ka duubo ayuu qatar ankii ugu jiraa.
ninkan xoogga leh ayaa magaalada muqdisho ka ah tagsiile kaasi oo dadka qaadqaada gabadhii qurxoonna waxa uu isku dayaa inuu si gaar ah ula hadlo isagoo oo dhahaya aniga ayaa maalin walba xaafadaada ku geynaya si lacag la-aan ah waxaana kugu qaadayaa gaarigayga adiga iyo familkaagu ankii haddii aad u baahataan in aad meel aadaan isoo waca sida uu gabadhaasi kusoo xerogeliyo ayuu doonayaa gabadhu markii ay tiraado haye oo ay dhowr jeer ka yeesho gaarigiisana ay raacdo shukaansi ayuu ku dayayaa lacago badan ayuuna usoo dirayaa lacagahaasi oo gaaraya $20 ilaa $10 gabadhu waa iskala weynaysaa oo weliba caruurta iskuullada dhigta ayuu ninkani u badan yahay kuwaasi oo caqligooda uu isku dayi karo inuu xadi karo gabadha sidaasi ayuu muuqaalka uga qabanayaa kadibna waxa uu u dirayaa niman cadaan ah oo la shaqaysto nimankaasi ayaa lacagta usoo diraya halkaasi ayuuna isagu ku mushahaaray oo mushaharkiisa ku qaatay gabdhaha Soomaaliyeed ayuuna sidaasi ku ceebeynayaa oo ceebtooda oo banaanka ku keenaya haddaba muxuu mudan yahay ninkan in magaalada Muqdisho uu kula joogo muxuu mudan yahay in lagu sameeyo muuqaalkan si sheergalay si uu u gaaro bulshadeynta Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho sidoo kalena uu u gaaro madaxda Muqdisho isla markaana wax looga qabto ninkan waxa uu isku dayaa gabar walba in uu muuqaalkan oo kala ka duubo isagoo oo dubaynaya waxa uu leeyahay wajiga ayuu uga qabanayaa isagoo oo qaarka dambe iska haysta wajigana uga duubaya muuqaalka telefoonkana saa ugu soo jaraya gabadha waxa uu ku soo xerogelinayaa sida aan idin sheegay sidoo kalena waxa inoo sheegay ninkan asalkiisi in uu ka yimid Somaliland Hargeysa halkaasi oo laga soo hantaatuliyay isla markaana laga soo ceeriyay si sheergalay muuqaalkan si wayna raajicin waryaalahan wallahi oo billah oo tullaayo waxaan u malaynayaa mataqaanaa Soomaalida hadday nahay mataqaanaa waxaan u malaynayaa inaan mid inaga hadhay baan u malaynayaa way rugmanaynaa waan u malaynayaa wallahi way rugmanaynaa waan u malaynayaa wallahi oo billah oo tullaayo walaalayaal waxaan arkay video meelaha la wareejinayo oo inan yar oo teenager ah oo Soomaaliyeed qof bili aadani oo video ka duuba walaal meelaha wareejinaya wallahi oo billah wallahi 3 jeer baa ilmayska biyo ilaahay goog qoom rugmanayna mari naga hari maayo wallahi dhaqankeeni dhaqan islaam maaha dhaqan gaal maaha dhaqan kale wax allaale wuxuu yahay baan garan waayniyo war ilma adeerayaal mid baa idin kula talinaya ilma adeerayaal inan kasto Soomaaliyeedna mid baan kula talinaya wiil kastana mid baan leenayo inan kasto Soomaaliyeed walaal ilaalintaas ilaalin karayso ilaahay ragiini desaas ku dhigay qayb kamid ah wiil kasto Soomaaliyeedna mid baan leen warantu waa hooyada waa walaasha waad qabtid waa taad dhashay